الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. walaalayaal dalkii ciraaq la oran jiray ee muslimka ahaa ee carabta ee taariikhda dheer lahaa wax weyn baa ka socda maalmahan meediyada dalalka carabta iyo caalamka intiisa badan sida aad la socotaan isaga haysta gaar ahaan meediyada dalka ciraaq gudihiisa ah. waxaana u sababa la kambeynka cusub oo musuqmaasuqa ra'iisul wasaaraha cusub ee bishii May shaqada bilaabay uu ku qaaday ballanna uu ku qaaday inuu hantidii laga dhacay dalkan uu dib u soo celinayo. marka waxaa jiray nin wasiir ku-xigeen ah batroolka, ninkaasaa la leeyahay wax badan buu fashiliyey. gurigiisa lacag badan oo malaayiina baa laga helay. waxaan filayaa 18 milyan oo dollar oo kaash ah oo dhulka meelo sanduuqyo lagu xereeyey. haweeney xildhibaanada waxaa laga helay gurigeeda 57 milyan oo dollar. waxayna ahayd qof kambeynka markay ku jirtay aad uga hadasha la dagaalanka musuqmaasuqa iyo dalkan maaragtay budgetka aan ku filnayn ee mushahar la'aanta iyo waxyaalahaas dhibaatooyinka ay ku dhacayso ka hadli jirtay. laga helay waxyaalahaas laga helay 47 mas'uuliina oo ay ku jiraan 12 xildhibaan oo hadda fadhiya. waxoo dhan xasaanadii waa laga qaaday, xabsigaana loo taxaabay, waxa waaran baa loo wada gooyey, maxkamaddeena wajahayaan. baaritaano kaleetana way socdaan. iyagii ayaana kuwa kale sii fashilnay oo sii sheegay. weliba waxaa leeyahay kalluunadii waaweynaaba weli lama gaarin. dalow waxa ciraaq ka socdaa ma soo gaari doonaan roobkaas, ma socon doonaa. cabsi iyo rajaba way jirtaa. dadka reer ciraaq aad iyo aad bay u faraxsan yihiin, waa yaaban yihiin kalibyada iyo social mediadooda marka aad fiiriso. waxay leeyihiin war waxaan haddee maaragtay 1,000 iskuul, 1,000 jaamacadood, 1,000 bahalkii, waxaa cusbitaal, waxaasoo dhan bay samayn lahayd. ilaan waxa weeye dad bayba jeebabkooda keliya gelaysa. xildhibaanad keliya ayaa fardaha wiilasheeda iyo reerkeedu ay leeyihiin, halkii mid uu joogo $200,000. marka runtii dalalka adduunka ka haray waxaa la haray waa musuqmaasuqa weye, oo hantidii ummaddan geli lahayd iyadoo ummaddii baktiga cunayso oo xaaraantii u bannaan tahay gaajo darteed, in dad kalena ay ku dekeeyaan oo iyagu siday rabaan ay ka yeelaan. waan rajaynayaa inay meelo badan soo gaari doonto aanay ciraaq ku ekayn, inay socoto oo dhab noqoto oo system isu bedesho. system iyo nidaam iyo dowladnimo iyo hufnaan iyo kala dambayn iyo maaragtay qadaa caadil ah iyo garsoor caadil ah oo ummadda wixii xadaya qabta inay meel walba gaadha ayaan rajaynayaa. soomaaliyana ay gaadho, meelo kale oo kala duwan oo afrika oo muslimiin ah oo ay la hartay dhibaatadaasuna ay gaarto ayaan rajaynaynaa. ilaahay idankiis khayrka allahna waafaj.